warqad meeshan taa la yidhaaheen saxiixa waxay tahay ma noqon markaas saxiixna la soo qaaday halkan markaa nimiday racfaankayga horta meel aan loo marin ma laha laakiin waxaan noqonay dad gaala ay haysato soomaaliduna meesha example u joogto sawir ahaan ayna waxba ka hadli karin ay arrinkayga geli karin oo waxaan noqonay dawlad ayagu haystaan ay maamushaan si rabaan ay ka yeelaan sidii animal barka ayayna soo fiisid gareeyaan sidii ama xildhibaano oo kale ama saraakiil ahaato markay noo yimaadaan inay noo taxsiiyaan ma ahayn horta wax noo kordhiyaan ma laha tusaale example ahaan in waas aragnay isagoo TV wata wuxuu naga ballan qaaday inuu meel fog noo gaarsiinayo laakiin sheekadu waxay noqotay sheeko ma laha I don't know anagu damaadaan waxaan nahay dad ku jira god baan ku jirnaa anagu oo caalam kale ku jirnaa in bila future ban meeshii ku noqonay ubadkayagii xaasaskayagii in isfasakhday iyo in maanta iska gambacdu iska wadataa ayay noqdeen okay why baa loo waayay dad annaga noo damqada why baa loo waayay adigu ama kaba soo qaad example maxaad xildhibaannimo aad ku tihiin haddii dadkiina aad ilaalinayn xuquuqdooda aad eegayn taas weeyana ka dhibaatooyinka badan in haysta dad badan baa ku imanaya anagu Soomaali baan nahay xildhibaanaan nahay ama si waxaan nahay dad responsible-kiina وأنا تحسيني تحسي وحنا هيسنا نكست سريتي سوستي دو عقول جرا إن جوان رو تحسيه نكست تحسي وكوكينيا بس أنا قدرت نوجارسيو حرمنا مدحونا نوجارسيو واي نلقو ما هيستو دد بيدلين نلقو ما هيستو ما تمركب بيجوبين نلقو ما هيستو العقبة الله هيستا نو هي بس سيدي مقرنا يسامل خانة أيكو أي سمستين وكله أيضا نو هي أنا subaxdii waa imanayaan and good morning waa noo soo boqoreen markaas waxay indhaha ka tirinayaan qof annaga naga mida inuu maqan yahay kale annaga authority-ga meeshan haysta annaga ciidanka meeshan haysta waxaan ka tabanno ma jiro naba ma soo dhaweeyaan wana tixgeliyaan codsiga noo tixgeliyaan xag raashina ahaato xag caafimaad ahaato inkastoo hadda caafimaadkii paracetamol haddaad u baahato ay noqoto jeebkaa ka gado waa UNODC ba awalkii hore bixin jirtay مران تليه ودي بان كده هو ورقتني قانون وميلان جي ما هيستو واي مش هتستاني اوكي رايت انا مش هتستو وحنا من عريان وكلام من ده dadki ii doodi la maanta waa inika kuwan iga badan oo inika sidino kala yimido meesha noo taxsiyo waa jiraan hadda waxaan markii anagu aan maqlayna noo timaadeen day waxaan u qaadanay run xitaa really aan u qaadanay ilaa alanka uma haysano inaad meel fog noo gaarsiin kartaan codkayga waay waa badnaa intii noo timid ninkasti madaxuu lulaa waa ka xumaadaa laakiin sheekadii wax meeshii ka soo qaadaya ma jirto waxaan noqonay sidii caruur yar yar oo been loo sheegayo kale okay future-kayga aawe marka maxaad responsible ka tihiin haddii annaka xuquuqdeedii aad noo soo dhicinayn annaka haddii gardarro iyo khalad nagu haysto hana taageerina naba laakiin si annagu waxaan rabnaa inaad nagu taageertaan xuquuqdeedii oo nu haysan future iyo caalam dambe oon rajo dambe aanu ka qabin waay waan curyaan mid macaan qaba mid indhabeelay mid kaliya xawnaya mid xididintu ku kacay codkiisii ka xidhmay oo ma hadlayo qoraal buu kula hadlayaa okay waay buu ku noqday nooca example tusaale ahaan waxaan joognaa waa maamul goboleed waa noo yimaadaan qof dhahma la waayo dadkani maxaa lagu haystaa soo bandhiga ajandaga soo bandhiga kalluumaysato waxaa jira sharci darro bal caalamka ka timaada oo si rabaan ka yeela marka la weydiiyo waxay dhahaan annagu ajandaga uma haysano wax soo qabtana leh laakiin taayadu nima dhibayso ininka waay waa ay ni dhibeen iyo kutooda u dhibaysaa way annagu waxaan su'aalahan qabno annagu wax badan baa horta meesha tan naloogu yimid sida hadda ninka walaalka iga horreeyay sheegay xeerlaaliya guud oo Soomaaliya noo yimid waanu aragnay dawladda Soomaaliya iyo maamuladaba waxaanu nahay dad maanta ka nuglaaday oo nuglaaday macnaha waxa weeye cadaalad la'aanta iyo dhibaatada waxa weeye dad waxaynu nahay maanta hadda baba ka soo wareegnay anagu meeshii aanu joogno waxaanu joognaa Soomaaliya maanta dad hoos yaal baan u baahan wax qabadkii Soomaaliya يا عدالة الصومالية معناها سيدا هذا الرجال ولا يقول ريش يجين ركبة أنا نوجا واش حبسيجا هو نوجا دينتين هو حوي ونوجا عريامين
intaasuna waxa ay nagu soo gaartay waa Soomaaliya anagoo caafimaad qabno oo yaacayna nala ka keenay meesha nala ka keenay laakiin Soomaaliya nagu soo gaartay waxa nagu soo gaartayna waxa weeye waa dhibaatada maalin walba nagu soo dhacayso oo dawladdu nooga imaanayso dadkii madaxda nooga imaanayso ay noo hor imaanayaan oo maalin walba iyaga iyo recording-koodii wato magacoodii ay wada socdaan inta noo yimaadaan ay nooga dhigayaan macnaha dad wax noo qabanaya diihalgelintuna waxa weeye dhibkeeda ay leedahay maalin walba niyadayadu way kacdaa haddana meelayna ka soo noqon bay gaartaa heer waxaynu gaarnay kuwa naga waasheen kuwa ay naga maciisaysan yihiin annagu xagga dawladda iyo maamulka nahaya si nidaamsan bay noo hayaan laakiin cadaaladii baa naga dhunsan macnaha oo aan cadaalad la'aan baan haysa waxa calaaya kulli xal hadal ku soo ururinaynaa waxaan u baahannahay maantayto inaynu helno cadaalad waxa hadda ragga iyagaan meesha fadhiya xaqiiqiyan marka xaqiiqdooda laga hadlo dad badan baa ilmahooda erga yihiin oo dad ay hoos joogaan aan waxba u gelinba macnaha dhibaato ku hoosaysa ayaguna aan waxba u qaban karin waxaan nahay dad noloshii ka curyaamay baan nahay dad waxaan nahay waxqabadkii ka curyaamay baan nahay dad nool oo maanta taagan baan nahay dadkii dhintayna ay dhaamaan macnaha waa laga samraa inta la xabaalo laga soo kaca qofka duu dhinto laakiin waanu joognaa oo dad nool baan mana noolin waxaan ku noolahay mar sida noo sheegay hadda taliyahu sheegay ragaanba xukumo aan qaadi karin baa xukumanahay waxaan ka rabnaa gurmad baan rabnaa annagu hadalka intaas